السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داود يا لهالكني وتلفزيون كهيميلو كسر وهذا حلقة ورركة قضبضة ندين هينا وحا قيب كنا قندونا قبل كشاب لذا دحيد دقاقية عيدان واسكسو هرجيدا أيا لغا دريميا وحانا لغا عبسي قبا اسكو دعيا عيدان الرقبلات كإيجاد أو سكول نوعا باريي هشيسيدا دحمريا سوماليلان إيا سيدو كلا إسرائيل xiisad dagaal u dhaxaysa laba milishiya beelood oo laga soo warinayo gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay howlgal qorsheysan oo ka dhacay buuraha Calmiskaad oo ay fuliyeen ciidanka dawlad goboleedka Puntland qodobadaas iyo macluumaadyo kale aan ugu soo kordha ayaan idin faahfaahin doonaa daawadayaal u diyaar garooba daawashada xulka wararka gobolka shabeellada dhexe wararka laga helayo waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac ee la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda oo ay gobolka ka sameynayaan ciidamada dawladda ka tirsan iyo sidoo kale ciidamo maleeshiyaad ah oo taageersan xubnaha mucaaradka inta u dhaxaysa Muqdisho iyo sidoo kale Warshiikh ayaa si weyn looga dareemaya dhaqdhaqaaqaasi waxaana xogaha la helaya ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo in labada dhinac ay isku dhacaan sargaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta Muqdisho u sheegay in amar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ay hirgelinayaan ciidamada ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ee soo galaya magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in baaritaan xoogan lagu sameyn doono iyadoo ciidankan tiradooda hubkay wataan cidda mas'uuliyadda ka ah markii la hubiyo kadib ay caasimadda soo gali doonaan amarkan waxaa la gaarsiiyay dhammaan talisada kala duwan ee militariga iyo ciidamada booliiska gaarka ah ee Haramcad xasan sheekh maxamuud ka xilka uu ka dhamaaday waxaa la soo warinayaa inuu qaadayo tallaabooyin uu doonayo inuu ku curyaamiyo ama uu kaga hortago xubnaha ciidamada mucaaradka ee lagu abaabulayo gobolka Shabeellada Dhexe inay ka soo gudbaan waqooyiga caasimadda kadibna Muqdisho ay soo galaan ururgoboleedka igad ayaa goordhow ay soo saareen waxay si kulul uga hadleen heshiiska dhexmaray Somaliland iyo Israel afayeen u hadlay ururgoboleedka igad ayaa wuxuu sheegay in ay ka walacsan yihiin habdhaqanka aan wanaagsaneyn ee Somaliland ee ku aadan gobolka Geeska Afrika ururku wuxuu sheegay in ay si weyn oo la socdaan dhaqdhaqaaqa Israel ee gobolka Geeska Afrika iyagoo sheegay in la ilaaliyo madaxtinimada waa madax banaanida iyo sidoo kale wada dhalashada dadka Soomaaliyeed afayeenka u hadlay urur goboleedka iyaga sidoo kale wuxuu sheegay in dawlad Soomaaliyeed ay dalkan ka jirto oo ah tan Muqdisho saldhigeedu uu yahay wixii inta ka dambeeyana ay u arkaan fowdo iyo qalalaasa dalka la gelinaya Somaliland waa gobol ka tirsan Soomaaliya ayaa lagu yiri warka dheer ee ka soo baxay urur goboleedka igad xiisad dagaal u dhaxaysa laba milishiya beeleed ayaa laga soo warinayaa banaanka degmada Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sida ay tilmaamayaan wararka halka laga helayana xiisadu waxay salka ku haysaa ka gadaal markii halkaas uu ka dhacay fal kufsi ah xubnaha la sheegay in ay falkaasi ka dambeeyeen ayaa la sheegay in qaarkood la soo qabtay halka qaar kalena lagu raajoogo ciidamada Djibouti ee qaybta ka howlgalka ATMIS ayaa la soo warinayaa in ay kala dhex galeen maleeshiyaadkaasi walow xiisado wali ay jirto maamulka degmada Jalalaqsi oo aan la xiriirnay waxay sheegeen in ay ragga gacanta ku hayaan qaarna baaritaan lagu sameynayo taas oo la sheegay in ay xiisada qaboojin karto haddii raggaasi gacanta lagu soo dhigo 3 ilaa 4 nin ayaa la sheegay inay farxumeeyeen hablo Soomaaliyeed oo ku sugnaa banaanka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ugu dambeyntiina wararka laga helayo buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ayaa waxay tilmaamayaan in ciidanka dawlad goboleedka Puntland ay goor u daateen goob uu shir uga socday xubno ka tirsan madaxweynaha kooxda argagixisada ah ee Daesh war la helayo waxay tilmaamayaan in howlgalku uu ka dhacay deegaan 20 kiiloomitir u jira buurtal Carmaale la yiraahdo halkaas oo xogaha la helaya ay tilmaamayaan in howlgal qorsheysan uu ka dhacay howlgalka ciidanka Puntland waxa ku heliyay ciidamada Mareykanka oo dusha ka taageerayay walow Puntland aysan si faahfaahsan howlgalkaas uga hadlin haddana warar ay himil helayso waxay tilmaamayaan in howlgalku si nabdoon u dhacay xogtu waxay inta ku dareysaa in Puntland bilihii la soo dhaafay ay gacanta ku dhigtay 22 xubnood oo ajaanib ah oo ka barbar dagaalamaya ururka Daesh kuwaas oo u kala dhashay Morocco, Saudi Arabia, Ethiopia, Tanzania iyo Uganda gudaha saaxiibayaal xulka wararka telefishinka Himilo maanta waa naga inta